السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتا soo dhawaada. Maanta waxaan rabaa inaan halkani ku sharaxo laba process oo ah kuwa aad iyo aad u muhiim ah kuna saabsan WhatsApp-ka. Haddaba haddii aad doonaysid inaad labadaas hab oo aan fili doono haddii aad daawatid inaad ka heli doontid haddaba nala soco. Labada hab ugu horeeya waxay tahay habka ugu horeeya wuxuu yahay sidee baan mobilkeyga ku isticmaali karaa laba application oo ah WhatsApp, sideen ku isticmaali karaa laba Facebook, sideen ku isticmaali karaa laba email. Processka labaad aan rabo inaan halka ku sanaano waxay tahay sidee baan rabaa inaan u qarsado profile-ka sawirka saaran profile-ka WhatsApp-ka ii saaran sideen u qarsan karaa, sidee asxaabta qaar inay arkaan sawirkaas meesha saaran, sidee bay dadka dhan aan rabo inaan haddii aan ku hormar habka koowaad oo ah sidee baan u qarsan karaa sawirka ii saaran profile WhatsApp-keyga anagoo macnaha u ogolaanin qofna inuu sawirkaas arko, laba inaan dad qaar oo asxaabta qaar rabo inay u arkaadaan iyo sidoo kale in aniga bis aan arko oo qof kale arkin. Haddaba bis waxaa soo furanay WhatsApp-ka markaas kugu jira ayaa soo furanay kadib waad ku dhufanaysaa marka ku dhufato kadib saan kuu soo baxaya kadib waxaad ku dhufanay meesha saddex dhibcood ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa kadib waxaad ku sii dhufanaysaa setting-ka sii gale setting-ka marka sii gasho kadib waxaad ku dhufanay meesha ku qoran tahay account-ga ku dhufanay kadib waxaad ka sii dooranay meesha ku qoran tahay preface. Marka ku dhufato kadib intaanu ku soo bixinaa aniga bis meesha u socono waxay tahay inaan ogaano profile photo WhatsApp-ka ayaan rabnaa inaan galno oo muhiimaduna mowduuceena maanta uu ku saabsan yahay. Waad ku dhufanaysaa kadib intaan instruction ayuu ku soo bixinayaa. Haddaba mid ka doontay ayaad ka dooranaysaa midda koowaad oo ah everyone qof kasta miyaad u baahan tahay inuu sawirka ku saaran profile WhatsApp-kaaga arko. Saddex my contact-ga macnaha dadka ku seefan oo markaas lambarada u seefan yihiin ama adiga ku seefan yihiin bis in arkaan rabtaa mise nobody qofna inuusan arkin ayuu rabaa. Haddaba markaas u baahan tahay aad ku dhufanaysaa aniga hadda for example waxaan u baahan inaan ku dhufto nobody qofna inuu arko ma rabo. Kadib markuu qofka marka aan la hadlayo kala ma arkaan sawirka meesha ii saaran. Haddaba waxaan filayaa inaad fahamtay waana mahadsantahay. Haddii aan u gudubno processka labaad oo ah sidee baan mobilkeyga ugu isticmaali karaa laba WhatsApp. Waxaa jira marka WhatsApp leeyahay WhatsApp aniga hadda meeshan laba WhatsApp ay ugu jiraan WhatsApp caadi ah iyo WhatsApp waxaa jira business mid leeyahay oo adiga macnaha si private ah u isticmaali kartaa si ganacsi ah u isticmaali kartaa oo ugu jira ama labo inaad inta Play Store aad tagtid aad ku qoratid application-kan lagu magacaabo parallel space aniga waa kana uu saaran yahay meesha kor uu saaran yahay waa parallel space kadibna aad open tiraa open marka tiraa kadibna intaan ayuu ku soo saarayaa. Application-kan bis maahan inaad ku isticmaashid WhatsApp bis maahan waxaad u isticmaali kartaa Messenger ku isticmaali kartaa Facebook ku isticmaali kartaa iyo sidoo kale inaad Google Chrome YouTube-ka inaad laba ka dhigatid macnaha laba YouTube ayaa iska leedahay kala ama laba Gmail waxa rabtaa inaad YouTube-ka wax ku daawatid kana wax ku daawatid. Haddaba afkaan markuu wuxuu ka saacidayaa inaad shay walba laba ka dhigatid anaada WhatsApp marka u baahanahay WhatsApp-ka kadib waxa leedahay marka waad ku dhufanay inta midka u baahanta ku soo dhufsanay adina dhahay marka marka tira kadib waa ku dhufanay waxa leeyahay adin to parallel space aan leedahay anaada lix abay ugu jira kadib markuu saan ku soo baxo ku soo galaa. Haddaba waxa uu isticmaali kartaa sidii oo aad u isticmaali kartay kuwii hore ayaa u buuxinay. Haddaba waxaan filayaa inaad ka heshay waa mahadsantiin.